waxaanu maanta idin haynaa warbixin xiiso badan aanu ciwaan uga dhignay ninkii guursadaaba muxuu u gubtaa. warbixintan oo ka kooban laba qaybood waxaanu idinkuga haynaa 6 nin oo ka shalaayay guurka gabdhaha sida xil kale u caan baxay ee reer Kardashian kuwaasoo uu gubto nin kasta oo gabar ka guursada, taasoo lagu sheegay inay sabab u tahay qoyskan oo inkaaran waliba wax ay saxaafadda qaarkeed u bixiyaan Kardashian Cares. balse aanu mar kale idin xusuusinay si aad noola socotaan fadlan rukumo bogogeena Hadalsame TV oo dhinaca YouTube ka ah iyo Hadalsame Media oo dhinaca Facebook ah. waxaan ahay Maxamed Xaaji. يسقين ماسكلا وحياب لحاس يلي كراي waxa xitaa la isla dhaxmara dacaayad ah inay belo ku neefsatay oo uu burburo hoosna u dhaco qof kasta oo soo balleeya. nin kasta oo guursada gabdhaha Kardashian inkaar baa ku dhacda oo noloshiisu dhulka ayay gashaa marka ay kala haraan, ayay tiri Kylie Jenner oo ay isku hooyo yihiin reer Kardashian. 6 nin ayaanu ku tirinaynaa oo aanu u qaybin doono 2 qaybood oo min 3 ah. 1. Lamar Odom wuxuu ahaa laacib ka tirsan horyaalka kubadda kolayga Mareykanka ee NBA markii uu balleeyay Khloe Kardashian 2009 isagoo cirka maraya horyaalka NBA ee xilliga iyo kii xigayna la qaaday kooxda Los Angeles Lakers. bil isku cindana oo hadhicin iyo hajabin la isku jiibanayay kadib waa isguursadeen. deeto Lamar waxaa ka dhintay in adeerkii 2011 toddobaad kadibna laftiisa ayaa galay shil gaari kaasoo uu isna ku dhintay wiil yar oo 15 jir ahaa. Lamar waxa kale oo ku soo baxay sheeko hoosaadyo uu qarqarinayay oo ay ku jiraan qalanjooyin u aasnaa qalam jalamiskood iyo eedo qaran weyn oo daroogada la xiriira. xitaa kooxdii uu xilliga u safnaa ee New York Knicks ayaa iska cayrisay oo qandaraaskiisii fasaxday. mihnadiisa ciyaareedna gagab ayaa ku dhacay. waa adigoo hoyan waayay lagu soo hargaliyay. Khloe waxay dalbatay furiin 2015 balse dib baa loo dhigay arrintaasi waayo Lamar waxaa ku dhacay faali ka dhashay mushakal darooga ah ama waxa loo yaqaan cocktail iyo waxyaabo kale oo uu isku isticmaalay marqura. waxaa la sheegaa inuu isku dardaray dhowr kuuro oo cocaine ah, alcohol iyo kaniiniyada kordhiya bandhiga ragga, isagoo sababteedana u galay suuxdin dheer kadib dhowr wadna istaag iyo faaligyo isla socda oo ku habsaday. ugu dambeyntiina waxay kala tageen 2016. Scott Disick wuxuu ninkan wax ku darsaday gabadha Kourtney Kardashian oo uu la kulmay 2006 waxaana noqdeen qoys rasmi ah oo raas degan, wiil iyo 2 gabdhoodna waa isu dhaleen. yeelkeed qisada carruurta iyo caanaha leh siima caga badin oo Scott waxa uu muqurtay caalamka daroogada iyo alkoolada. waxa xitaa laga qoray xarumaha dhaqan celinta 2015 wuxuuna xitaa mar ku sheekeeyay inuu laftiisu rumaysan yahay inay wax ka jiraan inkaarta la sheegayo inay ku xeeran tahay gabdhahan Kardashian. ugu dambeynna la iskuma salaamin oo waa ay kala tageen isaga iyo Kourtney 2015 kadib 9 sanadood oo ay wada joogeen. 3. Kanye West. fanaanka West oo sidoo kalena ah ganacsade weyn iyo Kim Kardashian waxa isbarteen 2003 sanado badanna saaxiibo iyo macrifo way ahaayeen, balse hadallo hoose dhowr gafur maroojis iyo xamxam badan kadib way isdoonteen 2013 iyagoona aqal galay sanadkii xigay ee 2014. Kanye iyo Kim hadda waxa ay wada leeyihiin 4 carruur ah. ha yeeshee Kanye ayaa isbitaalka la dhigay 2016 kadib markii loo baqay dhimirkiisa oo uu isku buuqay daal niyadeed iyo hurdo la'aan inuu la il daran yahayna waa la wariyay. 2020 Kim iyo hooyadeed Kristen Mary Jenner ayaa xitaa mar waxa ay noqotay inay holiyaan inay West dhakhtar si dirq ah ku geeyaan kadib markii uu ku dhacay cudurka dhimirka hela ee loo yaqaan bipolar disorder oo keena in camalka qofku uu daqiiqadba jawi cusub galo oo uu si ahaado waxa loo yaqaan mood swings. 2021 waa ay kala tageen Kim iyo Kanye West. isla sanadkii xigay ee 2020 waxa Kanye oo ah fanaan qaada isla markaana sameeyo heesaha raabka ku furmay doodo ku saabsan inuu sheegay hadallo yuhuud nacayb ah, taasoo keentay inay xukuumadda u siibaan sharikaad uu kula jiray qandaraasyo ganacsi oo qaali ah iyo ay dhahyo sida shirkadda Jarmanka ee Adidas oo isla lahaayeen laynka kabaha isboortiga ee loo yaqaan Yeezy. wuxuuna tilaabada oo qura ku khasaaray adduun dhan 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo saafi ah. waxaad maqli doontaan qayb kale waxaan idin la socodsiinay anigoo ah Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.